ururka dhalinyarada ayooda ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal ayaa mashruuc biyo xireenaha ka wada 3 goobood oo kala ah dooxyada Garbadadar, Balayga iyo Tuurka oo hoostaga degmada Lughaye ee gobolkan. Mashruucani waxa gacan ka siisay ururka ayooda hay'adda WFP oo dhanka maaliyadda ka taageeraysa wuxuuna socon doonaa muddo 3 bilood waxaana ka faa'iideysanaya 833 qof oo rag iyo dumar isugu jira waxaana goobjoog ka ahaa bilowgii mashruucan hablaha qurba jooga ee ka soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal. madaxa isku xidhka mashaariicda ururka dhalinyarada ayooda Maxamed Axmed Warsame ayaa waxa uu faahfaahiyay ujeedada mashruucan iyo waxyaabaha ay ka faa'iideysan doonaan dadka deegaanadan ku dhaqan. mashruucaasi dhowr faa'iido ayuu yeelan doonaa. mashaariicdii hore wuxuu kaga duwan yahay mashruuca waxa loogu talagalay in dadkii abaaruhu barakiciyeen inay u noqoto shaqo abuur iyo in deegaankii uu soo noqdo marka biyo xidheenadaasi la sameeyo. waxa ka shaqo galay deegaankan Garbadadar inay ku sugannahay 480 qof 480 qof oo bil kasta la siin doono lacag xaddigeedu yahay $86 oo loogu talagalay in yacni dhaqaalihii qoyskana lagu kabo shaqo abuurna loo helo deegaankiina markaa ay wanaajiso oo deegaankii la xidho oo biyo xidhaana loo sameeyo si deegaankii u soo noqdo maadaama abaaro fara badan ay ka dhaceen deegaanadan. 480 qof waxa weeyaan Garbada, 126 qof waxa weeyaan Tuurka, 227 qofna waxa weeyaan Balayga. mashruucaasi waxa filaynaa waa tijaabo in haddii Ilaahay yiraahdo tijaabadaasi marka laga baxo loo kordhiyo dadkii maadaama baahi fara badan ay jirto si dhaqaalihiina markaa qoysaska loo kabo ayna shaqo abuur ugu noqoto. sidoo kale Cabdilaahi Kaluule oo ah gudoomiyaha degmada Garbadadar ayaa isaguna waxa uu si weyn ugu mahadceliyay ururka dhalinyarada ayooda oo mashruucan horumarineed deegaankan ka fulinaysa. mashruucan in badan ayay sugayeen dadkani awal waxay ku qaadan jireen raashin bay ku qaadan jireen si waxa loogu bedelay si shaqo abuur loogu sameeyo inay ku shaqeeyaan oo ay xiraan meelahaas ay laagaha iyo daadadku ay jarjareen. sidaa darteed mashruucani waxaan u baahanahay oo ka codsanaynaa in loo kordhiyo maadaama dadkii ay isku arkeen dad camal u soo shaqo tagay heerihii way ka soo baxayaan way shaqaysanayaan way noqonayaan bishiina waxay u xaadirayaan biilkoogii oo toos ah. si kastaba ahaatee mashruucan waxa uu noqonayaa mid ay wax weyn ka faa'iideystaan beeralayda deegaanadan ku dhaqan kuwaasoo baahi weyn u qabay in biyihii dhaafi jiray loo qabto. Cabdi Fataax Axmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.